kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 394 ee barnaamijka tubta nabadda oo aan toddobaadkan uga hadli doono iskaashiga ka dhexeeya Soomaaliya iyo qaramada midoobay iyo siyaabaha ay qaramada midoobay u taageerta hanaanka dawlad dhiska iyo nabadda ee Soomaaliya. golaha amniga ee qaramada midoobay wuxuu sanadkii 2013 abuuray xafiiska kaalmada ee qaramada midoobay ee Soomaaliya UNSOM si uu dawladda Soomaaliya uga caawiyo dhinacyada dhismaha dawladnimada, horumarinta xuquuqda aadanaha, dib u eegista amniga, dib u eegista dastuurka, ka hortagga khilaafaadka, horumarinta dimuqraadiyadda iyo isku duwidda taageerada deeq-bixiyaasha caalamiga ah. Soomaaliya oo kaashanaysa bahwadaha kala duwan oo caalami ah waxay sanadihii la soo dhaafay ku tallaabsatay horumar dhinacyo kala duwan leh, gaar ahaan dhinacyada dawladnimada, iyadoo dalka ay ka dhaceen doorashooyin si nabad ah xilalka loola kala wareegay. waxay sidoo kale Soomaaliya guulo ka soo hoysay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, deen cafinta iyo ku biirista ururka dhaqaalaha Bariga Afrika, iyadoo Soomaaliya iminka ay doonayso in sanadka 2025 ay ku fariisato kursiga golaha amniga ee qaramada midoobay. haddaba si aan wax badan uga ogaano iskaashiga iyo taageerada qaramada midoobay ay siiso Soomaaliya, waxaan wareysi la yeelanay ergeyga xogyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Catriona Lang. waxayna ugu horeyn ka jawaabaysaa su'aal ku saabsan halka ay Soomaaliya marayso marka loo eego xaqiijinta nabadda iyo xasiloonida ay higsanayso. Well, thank you. Yes, I've been doing some reflecting on that. And the way I like to think about it is around 5 transitions that Somalia is going through. The first one is your political transition as you move from a system organized around 4.5 arrintaasi in muddo ayaan ka fikirayay sida aan jeclahay inaan u eego. waxay ku saabsan tahay 5 xaaladood oo kala guur ah kuwaas oo ay hadda Soomaaliya marayso. xaaladda ugu horeysa waa kala guurka siyaasadeed, maadaama uu dalku doonayo inuu ka guuro nidaamka qabiilka ku saleysan ee 4.5 una guuro nidaam dimuqraadi ah, doorashooyin toos ah iyo dastuur dhidibada loo aasay, kuwaasoo dhammaantood ku shaqeynaya xeerar la wada aqbalsan yahay. sida aan ka baranay cadeymaha marxaladaha kala guurka ah, dhammaantood waxay abuuraan qalqal. marka waxaan filayaa caqabadda ay wajahaysa dawladda Soomaaliya waa inay sii joogtayso dardartaas, inay hesho aqbalaad, isla markaasna ay xaqiijisay in marxaladda kala guurka ah ay dalku u hogaaminayso goob xasiloon oo loo wada dhan yahay. marxalad kasta oo kala guur ah kuwa ku qasaara, marka waa in aad ka fikirtaa sidii aad u qancin lahayd kuwa ku qasaaray xaaladda kala guurka ah, adigoo sidoo kalena diiradda saaraya kuwa ka faa'iidaya xaaladda kala guurka ah. kuwa hadda ku qasaaraya xaaladda kala guurka ah waa haweenka, dhalinyarada iyo qabiilada xuquuqdooda la duudsiiyey. dhab ahaantii jihada safarka waa tii saxda ahayd, laakiin waxaa loo baahan yahay in loo maareeyo si taxadar leh. taasi waa xaaladda kala guurka ah ee koowaad. kala guurka labaad waa midka ammaanka. Soomaaliya waxay maraysaa kala guur ka jira Midowga Afrika dhexdiisa. waxay ka guuraysaa ADMIS, waxayna u guuraysaa ciidamo cusub oo Midowga Afrika ka socda, kuwaas oo si cad ugu dambeyntii ku wareejin doona mas'uuliyadda ciidamada amniga Soomaaliyeed. waa in markaan aan xaqiijinaa inaan dhisna awoodda ciidamada amniga Soomaaliyeed, iyadoo la xaqiijinayo inay haystaan silsilad siyaasadeed oo si wanaagsan u shaqeynaysa, including ensuring they have a logistic supply chain that functions effectively. So the way I see this transition is really learning the lessons and making sure we focus on the how we do things as well as the what. marka sidaan u arka xaaladan kala guurka ah waxa weeye in cashiro laga barto iyo in aan hubinno sida aan wax u qabanayno iyo sidoo kale waxa aan qabanayno, iyadoo la xaqiijinayo in dhammaan bahwadaagta caalamka u wada shaqeysa si aad isugu xiran, iyagoo taageeraya istaraatiijiyadeena ka bixitaanka Soomaaliya si awood loogu siiyo Soomaalida inay la wareegaan. kala guurka saddexaad waa kala guurka dhaqaalaha Soomaaliya. sida qof walba og yahay, waxay hadda dhex mushaaxaysaa masiibooyin ragaaday, mashaqooyin dhanka bini'aadanimada ah oo ay weheliyaan abaaro, fatahaado, duulaan ayax iyo dhibaatooyin kale. waa inaan ku caawinaa Soomaaliya inay dhista dhaqaalo u babacdhigi kara saameynta la xiriirta isbeddelka cimilada oo ah mid aan laga baaqsan karin, maxaa yeelay saameyntaasi waa ay sii socon doontaa. marka waxaan u baahannahay inay Soomaaliya yeelato dhaqaale u adkeysan kara gariirada isbeddelka cimilada noocan oo kale ah. tusaale ahaan, iyadoo la eegaya sida nolosha miyiga loo bedeli karo. tusaale ahaan, ma waxaa wanaagsan lo'da lagu dhaqdi xero halkii ay ka noqon lahayd mid foofta,
marka taasi waa iyadoo laga fikirayo tusaalaha dhaqaalaha buluugga ah xeebta Soomaaliya. Taasi waa kala guurka saddexaad. Kala guurka afraad waxaan ku tilmaami lahaa kala guurka bulsho. Soomaaliya waa wadan weli aad maxaafid u ah, waa bulsho qaab dhaqameed weli ku nool, halkaasoo dumarka dhab ahaantii aysan si firfircoon uga qaybgelin nolosha bulshada. Sidaas darteed, haddaba marka ay Soomaaliya maraysa marxaladahaas kala guurka ah, waa in laga fikiraa in loo maareeyaa marxaladahaas qaab dhowraysa xuquuqda aadanaha oo laga dhigaa mid ku lamaan bulshada iyo fursadaha guud ee dalku ay ku jiraan haweenka, qabiilada xuquuqda la duudsiiyo, dhalinyarada, naafada iyo dhammaan dadka bannaanka ka jooga awoodda mas-uul. Waa in dhammaantood ay dareemaan inay joogaan halkii ay xaqa u lahaayeen. Kala guurka ugu dambeeya kaasoo dhammaan isku soo xoorinaya nooc ka mid ah hindisaha oo ay dowladda Soomaaliya si cad u bidhaamisay, kaasoo ah inay Soomaaliya ka guuraysa inay sii ahaato dal dhibaato ka buuxda, una guuraysa dal xasilinaya dhibaatooyinkiisa oo isla markaasna qaadanaya kaalintiisa heer gobol iyo heer caalami ahba. I think a good example of that is Somalia's hoping to take up its seat on the Security Council. taasna waxay ila tahay inay tusaale u tahay rabitaanka Soomaaliya ee kursiga golaha ammaanka ee sanadkan soo socda. Waxaa sidoo kale jira musharax haweenah u tartamaysa hoggaanka Midowga Afrika. Waxay Soomaaliya door firfircoon ka qaadatay wadahadaladii isbeddelka cimilada ee sanadkii la soo dhaafay. Marka sidaas baan ku tilmaami lahaa waa safar, laakiin waa safar u socda jihada saxda ah. waayahay, waa maxay doorka qaramada midoobay ay ka qaadanayso safarkaasi? So I think one of the things uniquely that the United Nations can bring is a convening role. We uniquely have the ability to bring the... Waxaan filayaa mid ka mid ah waxyaabaha gaarka u ah qaramada midoobay waa kaalinta isku keenista. Waxaan ku nahay awoodda isku keenista bahwadaag baaxad leh oo dhammaystiran. Haddii aad eegto halkan oo Soomaaliya ah, waxaan udubdhaxaad u nahay shuraakada, iyadoo Midowga Afrika uu taageerayo dowladda Soomaaliya, iyadoo dowladdu ay hoggaanka hayso. Laakiin sidoo kalena waxaa jira bahwadaag kale oo howsha qayb ka ah. Marka dalalka Soomaaliya dariska la ah sida Kenya, Ethiopia iyo Uganda oo sidoo kalena ah dalalka Midowga Afrika ciidamada ugu deeqay ayaa gacan ka geysanaya inay xaqiijiyaan in dalalkaasi gobolka ay ka ciyaaraan kaalintooda. Haddana waxaa soo raaca dalalka gacanka. Waxaa jira dalal badan oo gacanka ku yaala oo doonaya Soomaaliya sida Turkiga, Imaaraadka Carabta iyo Qatar, iyo sidoo kale waxa aad ugu yeeri karto bahwadaagta taariikhiga ah sida Mareykanka, Ingiriiska iyo Midowga Yurub. Marka waxaan ciyaarnaa door isku keenisa, anagoo isku dayayna howsha guud ee socota inaan ku biirino isku xirnaan. Marka aan eegno waxa ay tahay udubdhaxaad howsha naloo igmaday, waxaa lagu soo xoorin karaa taageerada dhismaha dowladnimada iyo dhismaha nabadda. Waa sidaas midda aan halkan u joogno. Ha yeeshee sida aan sameyno waa inaan sidoo kale bixinno taageero toos ah iyo kaalinta isku keenista. In terms of what our core mandate is, it's basically to support state building and peace building. That's what we're here to do, but the way we do it is, as well as providing direct assistance, is providing that convening role. Marka aad mustaqbalka eegto, maxaad u aragtaa inay yihiin fursadaha iyo halista ugu waaweyn ee horyaala horumarka Soomaaliya? So I think in terms of opportunities, one is, I mentioned earlier, the blue economy. And Somalia has a 2060 vision that it's... Waxaan filayaa markaan ka hadalno dhinaca fursadaha, mid ka mid ah waa dhaqaalaha buluugga ah. Sida aan horeyba u xusay, Soomaaliya waxay leedahay higsiga 2060 kaasoo mar horeba bilowday inay ka shaqeyso oo ah mid maanka ku haya Soomaaliya inay leedahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika. Waxaa ku jira fursado baaxad leh dhanka kalluumeysiga, waxaa ka jira fursado baaxad leh dhanka shidaalka iyo gaaskana waxaa ka jira fursado. Sidoo kale waxaa jira fursado dhanka dekedaha ah ee Soomaaliya leedahay sida aan ka arki karno. Is-afgaradkii u dhaxeeyay Itoobiya iyo Somaliland waxaa jirta dana badan oo laga leeyahay dekedaha Soomaaliya iyo sidoo kale fursado badan oo dhanka dalxiiska ah. Sidoo kale waxaad leedihiin xeebo qurux badan, laakiin waxaa jira xasarado u dhaxeeya ujeedooyinkaas. Haddii aan u gudubno caqabadaha, sidee ayaad u hubinaysaa inaad si dheelitiran u maareyso xiriirka ka dhaxeeya kalluumeysiga iyo shidaalka iyo gaaska? Haddaba waa in si taxadar leh looga fikiraa xiriirka u dhaxeeya labadaas. Sidoo kale waa inaan ka fikirnaa halisaha jira,
mid ka mid ah halisaha ugu weyn ee Soomaaliya wajahayso waa dhanka ammaanka. Dhanka badda xitaa markaan eegno waxaan arkaynaa inay dib u soo laabteen burcadbadeeda. Marka waa inaan si dhaqsaha uga shaqeynaa inaysan qarxin oo aysan dib mar kale ugu soo laaban. Sidoo kale waxaa halis ku haya Soomaaliya Al-Shabaab. Dowladda dhab ahaantii waxay samaysay horumar ololaha ka dhanka ah Al-Shabaab, laakiin waxaa muhiim ah dhab ahaantii in guulahaasi la xajiyo. isla markaasna markii dhul cusub lagala wareego Al-Shabaab in isla markiiba dowladdu gaarsiiso xasilin si dadka loogu muujiyo dowladda inay uga wanaagsan tahay shabaab. Taas micnaheedu waa in dowladdu hirgelisaa sharciga iyo kala dambeynta adeegyada aasaasiga ah iyo nolol ka wanaagsan tii hore la siiyay dadkii ku hoos noolaa Al-Shabaab. Halis kale oo weyn sidaan horey u tilmaamay waa isbeddelka cimilada kaasoo hadda nala jooga. Waxaan ku qasbannahay inaan la noolaano xataa haddii aan ku guulaysano inaan yareeno xaddiga kaarboon 2 ogsaydka ah ee hawada ku jira. Waxaa horey hawada ugu jiray xaddi badan oo ay tahay inaan la noolaano. Sidaas darteed waa inay Soomaaliya u diyaargarowdaa xaaladaha isbedbedelaya ee isbeddelka cimilada eena ka fikirtaa abuurista dhaqaale u adkeysan kara isbeddelka cimilada, ugu dambeyntiina ka guuri kara miyiga una guuri kara nuuc dhaqaale oo xeebaha ku salaysan. Fursadda ugu dambeysay ee aan ka arka Soomaaliya waa sida aan hore u sheegay inay doonayso in sanadka soo socda ay ku fariisato kursiga golaha ammaanka haddii wax walba ay u dhacaan sida ay doonayso. Taasi waxay Soomaaliya u suurtagelinaysaa inay ismuujiso ay sidoo kalena muujiso safarkeedii in Soomaaliya ay tahay mid naftiisa iyo dariskiisa heshiis la ah, isla markaasna gacan ka geysan kara xalinta dhibaatooyinka adduunka ka dhaca. That will enable Somalia to showcase itself, its own journey, but also demonstrate that Somalia is a country now at peace with itself and with its neighbours, hopefully, and able to help solve global problems. ugu dambeyn, maadaama aad soo gabagabeynayso waqtigaaga shaqada ee Soomaaliya, maxaad fariin ah oo aad uga tegaysaa shacabka Soomaaliyeed? First words I would say is a big thank you to the people of Somalia for welcoming me back. I was first here in 93, 94 in the original UN mission. Hagaag, ereyga ugu horeeya aan doonayay inaan dhaho waa kuwa aan doonayay inaan mahad ballaaran ugu jeediyo shacabka oo mar kale soo dhoweyn ii sameeyey. Waxaan Soomaaliya imid markii ugu horeysay sanadkii 1993 iyo 1994 anigoo ka mid ahaa howlgalkii hore ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, anigoo ka dareemay diiranaan xooggan dadka Soomaaliyeed. Waxaan ku safray dalka oo dhan ayaan ku safray waqtigaas maadaama safarku uu ahaa mid fudud. Markasta waxaan jeclaa inaan soo laabto, waana ku faraxsanahay inaan Soomaaliya ku qaatay sanad kale oo qurux badan. Waad ku mahadsantihiin shacabka Soomaaliyeedow inaad mar kale isoo dhoweysaan. Midda labaad, waxaan idinkula dardaarmayaa inaad ahaataan kuwa dhiiran oo adag. Aad baan idinla dhacsanahay. Dabcan qayb ahaan mahaddaasi waxaa iska leh dowladda Soomaaliya, laakiin inteeda badan waa shacabka Soomaaliyeed oo ah shacab hal abuur iyo karti leh. Waxaan la shaqeynayay qaar ka mid ah haweenka dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed oo ah kuwo aad cajiib u ah, karti badan. Tusaale ahaan qaarkood waxay ka shaqeeyaan dhanka ammaanka. Dadkaasi qaarkood waxay u soo laabteen inay dalkooda u adeegaan. Tusaale ahaan waxay ugu abuureysaa rajo weyn oo aan ka qabo Soomaaliya. Marka waxaan idinkula dardaarmayaa inaad ahaataan kuwo dhiiran oo adag, safarka sii wada. Waxaa jiri doona dib u dhacyo, waa kuwo aan laga baaqsan karin, laakiin markasta aan isha ku hayno yoolka aan higsanayno oo ah Soomaaliya oo nabad ah oo adkeysan karta, isla markaasna kaalinteeda gobol iyo midkeeda caalami ahba qaadanaysa, halkaasoo sidoo kalena ay dadka haystaan fursado ay kartidooda iyo hamigoodaba uga faa'iideysan karaan oo ay dhammaan carruurta Soomaaliyeed ku dhisi karaan mustaqbalkooda oo ifaya. Safarkaas waan idinkula jiraa. Meel kastoo aan aado waxaan idin noqon doonaa safiir, waxaana gudbin doonaa sheekadiina oo ah sheeko wanaagsan. I'm with you on that journey, and wherever I am going to be in the world, I'm going to stay an ambassador for Somalia, helping to tell your story, which is a good story. aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. taasina waxay ahayd ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Catriona Laing, oo u waramaysa barnaamijka Tubta Nabadda. waxaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii Tubta Nabadda oo ay idinla socodsiinayeen Faaiise Cabdi Warsame iyo anigoo ah Maxamed Salaad Cismaan.
fadlan noo soo gudbiya aragtidiinna idinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan facebooka ku leenahay oo ciwaankeedu yahay tubta nabadda ha yeeshee waxaad markan u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambaysay ee barnaamijka oo ah qaybta qadadka taleefannada adinkoo naga soo wici kara idaacadaha aad barnaamijkan ka dhagaysanaysaan